xildhibaanada lamada min ee baarlamaanka Soomaaliya geeka oo aqlabiyad leh gacan saxiyeen habraha wal ku bedelowga dastuurka ku meel gaarka ee way bana ogolaaday 180 xildhibaan way bana diiday 30 mudan asuus ka dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka saas daraadii arantun way baa xareerayaasay opsiyo muujayaan qaar ku mid ah xubno lamada min siyaasiyiinta dalka hore hilalhan ku qowdan yoo sheegan in roon waqtiga la ka mashquulo lahay SEO-ka iyo wal ku bedelowga dastuurka maadaama ay suruntii xiisadan dhaxaysay Itoobiya iyo Soomaaliya ee aramo badan oo heloon lan baahan in dawladda diiradda saarta way baan ku digaanay xalasta ka gadaaman iska dayowga madaxtooyada ka fadahayta wal ku bedelowga dastuurka dalka iyo olan marsiina suusa qeexo oo tubku tumeeshanaad ee dastuurka waana tilaabo qatarka ee xasiloonida dalka iyo wada jirowga umada Soomaaliya oo horseedo kor khilaaf horle iyo haween laan siyaasadeed yalla kwari war saxaafadeed u sugeeyay saari ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre sidoo kale madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo qoraal u saadhigay bartiis Facebook ka ari way bajarana khataraha ku wareegsan dalka iyo dadka Soomaaliyeed waana lambaahan in meel isku dhika arimo khilaafka gudaha way bano ku walwalsanaa qorshaga madaxtooyada iyo qaraaraya hay'adda dastuurka iyo hanaanka maamulka dalka taas oo ku dhalada korta qalalaasa siyaasadeed oo brokora hanaanka federaalka iyo wada taladowga heliiska lakeeyay la keenay qoraalka muddooyinkii inka dambeeyay way baa siyaasadda Soomaaliya ku wareegsanaa khilaaf cusub ee Itoobiya iyo Soomaaliya la xiriirta heshiiska is-afahamo ka hayo oo koodi bilunyo shal saxiixdan Itoobiya jamhuuriyadda go'aan goosadka Soomaaliland